شاء الله تعالى waxaan wax yar ka taataaban doonaa mawduuc ay soo jeediyeen culimadu oo ku saabsan in wax laga sheego waxyaabaha muhiimka ah oo ay ka hadashay suuradda loo yaqaan suuratu Qaaf. waxaan rajaynaa khiyaarta iyo culimada iyo waxgaradka masjidku tafsiirka waa ka dharagsan yihiin. ujeedadeenu maahan in aan kelimad u fasirno. culimadeennii ayaa sameeyey ilaahay khayraasiyo Soomaaliyeed si fiican oo ku filan ayaana loo sharxay, laakiin waxaan abbaari doonaa haddii ilaahay idmo macnaha guud ee suuradda qaybaheeda kala duwan ay rabto inay ka hadasho. markii suuraddaas aan dhammayno maxay tahay faa'iidada qofku uu filanayo in uu helo mashruuc walba ama arrin walba oo aad galaydo, ujeeddo iyo dan aad ka leedahay oo aad rabto inaad gaarto marka waxaan sidii la rabay ay u qabsoomaan ayaa jira. marka haddii tusaalaha qofku uu suuraddan oo dhan dhagaysto maxay tahay waxyaabaha la rajaynayo in la gaaro. haddii ilaahayna waafajiyo sidii loogu talagalay inaan u sheegno, waxaan ugu talagalay qofka dhagaystay inuu gaaro suuraddan in haddii uusan hore u aqoon suuraddan ujeedada iyo macnaha ay xambaarsan tahana inuu xoogaa fiican ka fahmo. haddii uu horey u maqlana macluumaadkii laga yaabo inaysan isugu xirnayn inuu u soo aruuraan oo si isku habaysan uu u xasuusto haddii ilaahay idmo. suuratu Qaaf qur-aanka qofku markuu rabo inuu tafsiirka iyo ujeedada iyo macnaha ka dambeeyo qur-aanka inuu fahmo iyo suurad walba, horta waa inaad marka hore fahamto suuraddan aad rabto inaad macnaheeda dhuuxdo qur-aanka meeshay uga jirto. markaad fahamto qur-aanka meeshay uga jirto, haddana macnaha ay ka hadlayto, haddana siday isugu xiran tahay, iyada dhexdeeda xiriirka ka dhexeeya suuraddan iyo suuradihii kale xiriirka ka dhexeeya, qofku intaas markuu muuqaalka kore helo kadib ayuu u daadegi karaa aayad aayad inuu u fahmo macnaha suuraddan ku jira. qur-aanku waa sida silsiladoo kale, waa isku xiran yahay, ma ahan wax hadba meel lagu boodayo oo hadba tusaale ahaan arrin muhiima uun la iska abbaarayo maahan. qur-aanku waa silsilad isku xiran, waa macne meeshaad ka soo gasho iyo meeshaad uga baxaydo ay isugu xiran yihiin sida silsiladdu ay isugu xirantahoo kale. haddii marka aad fahmi weydo qur-aanku siduu isugu xiran yahay ama macnaha ka dhexeeya ama ujeedooyinka uu ka midaysan yahay, macnaheedu waxay tahay inaad usii baahan tahay inaad culimadii warkoodii si fiican u dhuuxdo, inaad kutubtii u noqoto si aad u fahamto aayad walba iyo xaraf walba oo qur-aankan ku jira iyo suurad walba ujeedo loogu talagalay oo aan wax kale oo booskeeda geli kara aysan jirin ayaa loo keenay. erey kasta oo qur-aanka haddaad erey kale ku bedesho macnihii uu xambaarsanaa iyo ujeedadii laga lahaa qayb ayaa loo leeyahay. suuratu Qaaf waxaan dul maraynaa marka hore ujeedadeeda guud. culimadu markay rabaan inay macneeyaan siyaabo kala duwan ay u macneeyaan. qaaf waa hal xaraf. maxay tahay ujeedada qur-aanka qaaf loo yiri? culimada qoloba siday ku fasirta, laakiin sida ugu fiican waxay tahay ujeedada laga leeyahay iyo danta ka dambeeda ilaahay yaqaan, allahu aclam bimuraadi. laakiin culimadu waxyaabihii ay sheegeen markay isku dayayeen inay fahmaan xikmadda ka dambeeda qaaf iyo waxa lamidkaa in lagu bilowdo suuraddan, markay isku dayeen macnayaashii usoo baxay waxaa ka mid ah
in ay ka mid tahay carabta oo luqadoodii qur-aankaanu ku yimid oo cid iyaga kula tartami kartay aysan jirin qur-aankiina lagu kari waayey inay rumeeyaan oo ay qaataan ayaa waxaa la tusaahay yidhaahdeen bal waa kanahay waa luqadiinii iyo xarfihii luqadiinu ka koobneed ayay suuradan iyo suuradaha lamidkaa ka kooban yihiin bal kaana iyadoo kale wax ah isku daya inaad adinku dhoodhoobtiin xataa hal suuradoo kale inta adinka dhan isku tagtiin oo aqoonyahan walba la dooro oo aftahan walba loo yeero oo gabyaan walba la dooro isku daya bal hal suurad xataa inaad isku soo toosidin ma suurtagal maaha qur-aankan waa qur-aan uu ku hadlay ilaahay kownka dhan abuuray oo aysan suurtagal ahayn in wax khalad ah ama wax ceeb ah ama wax aan saxsanayn ama wax naaqus ah in maalin maalmaha ka mid ah ay ka soo baxdo waxaan loogu talagelin waay sababto ilaahay warkiisi waaye maalinta uu kownku bilowday waqtigii kownkaagu bilowday iyo markuu dhammaanayana inta u dhaxayda ilaaha og wax walba oo ku jira ayaa sameeyey laakiin wax kastoo bani aadamku sameeyo ayaan markii la joogaba waxaa soo baxaa ay ahayd in ama lagu daro ama laga gooyo waxuu raba ha noqdo wax kasta sababto bani aadamka caqligiisa iyo garaadkiisu waa wax kooban si kasta oo aad aqoon walba loo gaaro waa wax xadidan oo kooban waxa dadku ay samayn karaan laakiin qur-aankan waxaa ku hadlay ilaahay qaaf walqur'aani almajiid suuradan waxay soo degtay intii nabigu joogay salawaatullahi wasalaamu calayhi magaalada mako qur-aanka soo degay intii maka la joogay markii kulligiis ay culammadu fiiriyeen waxay arkeen waxyaabo uu ka midaysan yahay qur-aankaas wuxuu xoogga saaraa arrimo gaar ah wax kale waa jiraan laakiin waxaa ugu muhiimsan tusaale ahaan iimaankii tusaale ahaan in dadkay lasoo bixinayo oo ay waxyaabaha aadka u diideen gaaladu ahaa nabiga risaaladii nabiga loo soo dhiibay akhlaaqda in loo dhigo aas xoogan oo ay ku fariisato xooggeedu halkaasuu qur-aankaasi u badan yahay uma badna qur-aanka maka kusoo degay inuu ka hadlo waxaana xalaala iyo waxaana xaaraana kana fiican kana xun oo axkaamta caadiga ah uma badna xoogga waxaa la saaray akhlaaqdaas iyo iimaankaas iyo tawxiidkaas iyo caqiidaday meelahaasa awoodda laysugu geeyay sabab dadkaanu diin ma oqon intaan la gaarin salaatuko iyo soon iyo zako iyo xaj intaan la gaarin qof ilaahay aqbalsan oo diinta aqbalsan oo diyaarsan oo wax loo sheegi karo horta marka hore in lasoo diyaariyo markaas kadib ayaa la dhihi karaa khamri lama ogola salaada loo ogol yahay zina lama ogola soona la iska markaas kadib baa la dhihi karaa laakiin qof aanba isagii diyaarsanayn waxba sharci ah iyo waxyaabo axkaam ah looma jeedin karo sidaas awgeed waxay ahayd waqti la diyaarinayay dadka oo akhlaaqdooda iyo iimaankooda iyo caqiidadii iyo tawxiidkii ayaa aad xoog loo geliyay markii taas laga soo dhisay oo ay dad dhisan oo isku filan noqdeenna magaaladii madiine markuu nabigu u wareegay waxaa iyaduna aad u badatay aayadaha iyo suuradaha ka hadlayaan sidii loo dhaqmi lahaa sidaad qoyskaaga ula dhaqmi lahayd sidaad u tuka lahayd sidaad ilaahay ula dhaqmi lahayd sidaad waxa kugu hareeraysan oo khalqigii kale sidaad ula dhaqmi lahayd waxaasoo dhanna markaasaa la sheegay suuraddan waxay soo degtaan niri markii uu joogay nabigu salawaatullahi wasalaamu calayhi magaalada maka laakiin axaadiis iyo aathaar daciifa ayaa waxay sheegay aayad kamida iyo inay kusoo degtay madiino laakiin ma ahan arrin xagga cilmiga xadiidka marka loo kaco isku toostoosan sidaas awgeed waa suurad kusoo degtay magaalada maka sababtay usoo degtay maxay tahay qur-aanku wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo sababu nuzuul xadiidkuna wuxuu leeyahay sababul wuruud sababu nuzuulka waa sababtii tusaale ahaan ka dambeeyday in suuraddan ilaahay uu soo dejiyo maxay ahayd xadiis isku toosan oo ishaysta oo sax ah oo si toos u sheegayo
ma aanan la kulmin culimmadu inay sheegaan mufasiriinta iyo ragga kale hal mida culimmada qaar sheegaan laakiin ma naf badna waxay yidhaahdeen suuraddan sababtay usoo degtay markay rabeen inay culimmadu sheegaan waxay yidhahdeen nabiga wuxuu ka sheekeeyey salawatullahi wasalaamu calayhi sida waqtigii tusaalahaan kownkan la abuuray gaar ahaan cirka intaasoo maalmood dhulka intaasoo maalmood wixii uu ka sheekeeyey 6 maalmood markaasaa yuhuuddu waxay ku yidhaahdeen warkaaga waa fiican yahay laakiin wax yaraa ka dhiman haddaad dhamaystiri laheed aada u qurxoonaa leh oo maxaa ka dhiman waxay yidhahdeen waxaa ka dhiman inaad sheegto maalintii 7aad ilaahay inuu nastay markuu 6 maalmood soo sameeyey dhulkii iyo cirkii iyo wixii tusaalahaan loo baahnaa maalintii 7aad inuu nastay maadaama uu ku daalay hawshii iyo shaqadii uu qabtay intaasaa ka dhimanay marka suuraddan arrintaas in lagu burburiyo ayaa loogu talagalay laakiin ma ahan arrin aada u xoog badan suuraddan sidaan soo sheegnay qur-aanka maka kusoo degay meelaha uu xoogga saaro ayay iyaduna xoogga saareen oo waxaa ugu weyn oo suuraddan uu ka hadle oo awooddana la isugu geeyey in dadka la fahamsiiyo in markii ay dhintaan kadib lasoo noolaynayo oo ay soo baxayaan oo hadhowbito lala xisaabtami doono laakiin intaas kaliya ma sheegin ee waxyaabo badan ay sheegtay oo tusaalahaan qaybo kala duwan ah ayay suuraddu sheegtay markaas tusaale ahaan aan damacnay inaan isku xirno marxaladaha iyo xaaladaha la maro aakhiro ayuu dhan sheegay laga bilaabo qofku marka uu dhiman rabo ilaa meesha u dambayda suuraddan way sheegay tusaalahaan markuu uu dhintay qabrigiyaa la geeyey waa la soo bixiyey ilaa meesha u dambayda ilaa janno iyo naar laga tago silsiladaas oo dhan suuraddan way sheegay weliba qaab meelaha qaar waxay suuraddan u sheegay qur-aanka kale tafaasiil hoose oo uusan qur-aanka kale sheegin ayaa iyada ku jira suuradda waxyaabaha uu tegi doona waxaa ka mid a inta arrimahaas tusaalahaan dadka loo sheegayo inay rumeeyaan bactiga iyo soo nooleynta inta loo sheegayo ayaa waxaa looga digaa dadkii lagu kari waayey inay diinta qaataan oo nabi maxamed rumeeyaan oo bactiga rumeeyaan waxyaabaha looga digaya waxaa ka mid a in lagu cabsi geliyo haddii ay arrintan qaadan waayaan loo sheegayo inay arrintooda ku dhammaan karto dadkii iyaga ka horreeyay oo dhagaha furaystay oo maskaxdooda xirtay oo waxba rumay diiday meeshay ku dambeeyeen inay iyaguna ku dambeyn doonaan suuraddan waxay ka hadlaya dhimashadii waxay ka hadlaya dadki in lasoo nooleynayo hadhowbito aakhiro lasoo kulminayo in ilaahay hortiisa la keenayo oo maaragtay lala xisaabtamayo markii dadkan lala xisaabtamana sidee mu'miniinta loola dhaqmi doonaa sideese dadka aan mu'miniinta ahayn loola dhaqmi doonaa arrimahaasi suuraddu ay ka hadli doontaa haddii ilahay maadaama arrintan ay ka hadleen suuraddan oo ay arrin aada u xoog badan tahay oo meelo badan ay taabanaydo nabigu wuxuu akri jiray salawaatullahi wasalaamu caleyh suuraddan meelaha maxfalada iyo isku imaatinka waaweyn marka la joogo marar badan suuraddan u akri jiray tusaalan ciidoo kale marka dadka ugu badan isku yimaadiin suuraddan u akri jiray jimcaha keligooda ku khudbeeyey mimbarkuu fuulay in alxamda lilahi markuu soo dhameeyey suuratu qaaf billah dadka uu u sheegaa waa dad eray ula socda qur-aanku wuxuu ka hadlaya suuraddaanu ku khudbeeyey mimbarkuu kasoo degay salaada subax uu ku akri jiray sidaas awgeed ayaa gabar saxaabta ka mid aheed oo la dhihi jiray umu hishaam bint xaarisa ibn nucmaan ayaa waxay tiri iyadoo arrintan ka hadlayda maa akhadtu qaaf والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم على المنبر إذا خطب الناس سورة قاف دكس قرآن أمجلين جامعتنا كما بران دتكنا كما بوسن عن كم مقلي تري وعن كحفظي نبي عربكس سببته أمرك دتك أخذ بيني
suuraddan u akhrito xadiidkaas waxaa mariyey imaam muslim kitaabkiisa saxiix muslimku ku yaal xadiid kale oo jaabir ibnu samura laga soo warinaya isna wuxuu yidhi kana nabiyu calayhi salaatu wasalaam yaqra'u fi lfajri biqaaf waalqur'aani almajiid markii salaada subax la tukanayo wuxuu ku akri jiray qaaf waalqur'aani almajiid dadku waxay xasuusanayaan macnaha ay suuraddan xambaarsan tahay iyo sida qofkii qaadan waayo qur-aanku wuxuu u sheegayo meeshuu ku dhammaan doono iyo wixii dhanaa loo sheegaa iyo qofkii yeela wanaagga uu la kulmi doono marka waa arrin wadnaha aan la sii karin sidaas awgeed waqtiyadaas dadku ay isku yimaadeen ayuu nabigu akhri jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maadaama suuraddaanu ay arrimahaas xooggale ka hadlaydo culammadu waxay yidhahdeen qaarkood qofkii suuraddan macnaheeda si fiican u dhuuxa oo si saxa u fahma oo tadabbur laga helo oo suuraddan si fiican u garta waxay yidhaahdeen waxaa la tijaabiyey oo la ogaaday in ilaahay uu furaayo qalbigiisa meel kasta oo dembigu uu xiray iyo meel kasta oo la awday oo aan khayrka iyo wacdiga iyo diintu ay geli weyday albaab walboo xirmay wuu furmahli markuu suuraddan qofku si fiican ugu tadabburo sidaan soo sheegnay mawduucyada ay ka hadlayda way fara badnaayeen laakiin meesha ugu xooga badan oo ay ka hadleen waa dadka in lasoo noolaynayo ayay suuraddu ka hadashay suuraddan waxay ka mid tahay suuradaha hal xaraf oo keli ah lagu bilowday qur-aanka waxaa ku jirta 3 saad iyo qaaf iyo nuun marka qur-aanka suuradaha la fiiriyo sidaas isugu xigaan waxaa horeyda saad waxaa ku xiga qaaf kuwa halhalka ah waxaa ugu dambeeda nuun laakiin marka la fiiriyo markii qur-aanku soo degaya suuradahan sidii u kala soo horreeyeen waa sidaan hadda sheegnay kasoo horjeedkeeda tusaalahaan suurad walbaa waqtigii soo degtay marka waqtigii dhinacaas laga fiiriyo siday usoo kala horreeyeen soo degidda marka la fiiriyo waxay u kala horreeyaan in laga soo bilaabo hoos nuun qaaf saad laakiin qur-aanka markay ku qoran yihiin siday u tartiibsan yihiin u nidaamsan yihiinna waxay u kala horreeyaan saad qaaf nuun haddii sida kale a u fiirido oo nuun qaaf saad aad u fiirido saddexdaas eray waxaad moodaa waxay dhalinayaan macnaha ah naquso nuun qaaf saad suuraddan iyada dhexdeeda markaad fiirido kulli waa macaani iyo ujeedooyin isku xirxiran oo silsilada bilowgeeda iyo dhammaadkeedu waa isku xiran yihiin suuraddu maxay ku bilaabatay qaaf waalqur'aani almajiid waxaa lagu bilaabay qur-aankii meesha u dambeeda markaad tagto waxay leedahay fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid haddana qur-aankia lagu soo celiyay bilowga waxaa ku jira gaalada oo yaab iyo ama kaag maaragtay ka muuqda oo yidhaahdeen aidaa mitna wa kunna turaaban dalika rajcun baciid hataan dhimano oo waxay yidhaahdeen qofku baaba-o oo uu marka dambe boor iyo habaas isku rogo eber u noqdo maxamed inaad haddana tiraahdo dadkii waa la soo noolayna oo qofkii hebel ahaa oo aad taqiina soo noolaana soo noqoshadaas iyo soo noolaashahaas waxay yidhahdeen waa waxaan suurtagal ahayn caqligan bani aadamka wax galaya maha yidhahdeen suuradda bilowgeeda saas ayagu saas markay yidhahdeen suuradda dhammaadkeeda waxaa ku jira yawma tashaqaqu اlardu canhum siraaca dalika xashrun calayna yasir waxaad moodaa in ayagaa loo jawaaba goorta waxaanu dhacayan aad leedihiin suurtagal maahan oo mustaxiil oo wax dhici doono maahan yawma tashaqaqu اlardu canhum siraaca waa waqtiga dhulka sida marka ay geeduhu ay tusaalaan miruhu ka soo baxayaan dhulku inta dilaaco ay mirtu soo baxayd oo kale waqtiga saas ay soo baxayo markaasuu weliba wuxuu yidhi ilaahay inaan dadkaan oo dhan qofkii ugu horreeyay aadam ilaa midka u dambeeya isku keenistooduna waa shay aada noogu fud bilowga suuradda qaybteeda hore waxaa ku jira afalam yanduruu ila asamaai fawqahum kayfa banaynaaha waa loo caqli celinaa war waxaa leeyahay arrintu meeshaad ka doonaydin maaha haddaad caqliga aan idin siiy aada isticmaashiin
wax walba oo aad diidanaydeen wax idin tusaaya inay khalad ahaayeen oo saxda idinku soo ridaaya ayaa jira maad fiiridiina la yidhi cirka iyo waxa ka dambeeya dhowtaan sheegi doono meesha u dambeeda suuradda ayadana waxaa ku jira walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fi 6 ayaamin wamaa massanaa min lughub macnaa samaawaadkii iyo inta iyo dhulkii iyo inta u dhaxayda waxaan aan abuurnay 6 waqti 6 ayaam 6 waqti wamaa massanaa min lughub macnaa wax daala iyo culaysa iyo dhib ah oo naga soo gaaray oo aan dareennana ma jira sababto ilaahay inuu qof abuuro iyo inuu dhulka abuuro ama cirka abuuro waa sugu mid maxaa lagu abuuraa inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakun ilahay shaqo uu qabanayo oo isagu ku daalayo ma suuraddan iyo suuradihii hore iyada dhexdeeda hadday saas isugu xiran tahay suuraddan iyo suuradaha geesaha ka xiga xiriirka ka dhexeeya muxuu yahay suuraddan waxaa ka horreeyay suurat lxujuraat suurat lxujuraat waxay ka hadashay arrimo fara badan oo markii laysku geeyo la dhihi karo waa aadaabta bulshada muslimkaa sida inay u dhaqanto la rabo ayay ka hadashay waxyaabaha dadka isku xira waxyaabaha asbaabta keeni kara dadku inay kala dhintaan oo ay kala furtaan oo ay isnacaan oo ay isdilaan waxyaabaha keeni kara oo dhan ayay ka soo hadashay suuraddaas waxaas aayaddaas sheegto o dhan ay suuraddaas ka hadashana kulligood waa wax xooggoodu afka uu xiriir la leeyahay inaad wax aad tiri laa tuqadimu bayna yadi illahi warasuulih ilaa meesha u dambeed xooggoodu waa wax qofku leeyahay suuraddaanu marka waxay sheegtay maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid oo wax kasta oo aad tiraa oo tusaalahaan ama khayra ama shar ah in la qoraayo oo xisaabtan jiro ayay suuraddan si fiican ay u sheegay suuradaha kalena waxay sheegayaan tusaale ahaan arrintaasi sii faahfaahinayaan oo qofka wixiisii marka la qoro aakhire markuu tago kitaabkiisii qoranaa la siinaa wixiisii laga qoray oo dhan documentigii dhan laga qoray maalinta uu yaraa ilaa markuu dhan u dhintay wax alla wixii laga qoray alaabtii isku habaysan ayaa la siinaa markaasaa waxaa la leeyahay maanta uma baahni turjumaan luqadaada aqoon far aada akri karin kulli maaha waa waxaad 100% waadix ku ah adigu ka dharag oo akhriso iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba qofku marka kitaabkii ku hamhamowsanaa uu fiirfiirina wixii uu akhrina laba mid soo bixi wuxuu ka naxo oo qaraacana oo dhibaato ah inuu la kulmo iyo inuu farxo hadduu uu la kulmo wax wanaagsan oo riboorkii iyo warbixintii laga soo gudbiyey oo malaa'igtu waxay qorayeen oo dhan hawl isku toosan qof akhyaar inuu ahaa oo wanaagsan inuu yahay hadduu helana muxuu sameynaa waa aragteen imtixaanaadka adag oo qofku markuu baaso adduunyada rajaynayo meel weyn inuu gaaro dadku aad u sugaan ama idaacadaha ha noqoto ama qoysaska ha noqoto ama ardayda imtixaanada gashay qof walba dhegtaa u taagan talow maxaa la dhihi doonaa maalinta la yidhaha hebel waa baas ama hebel waa baas waxaa laga yaabaa dadka qaar inay sidii ay samayn jireen xaflad dhigaan oo faysteeyaan oo alxamdulilah waa guulaystay la yidhaah isagu marka muxuu sameynaa qofkaan aakhire markuu tago riboorkii laga qoray uu akhrina hawsha markay u fiicnaato oo uu arko kitaabkiisii loo dhiibay inuu xaaladdu fiican tahay farxad awgeed waa ishay weynaa dadkii kula dhex orda ha uma qoro kitaabi war waa kana fiiriya kitaabkayga anigu waxaa isoo sii qofkii inta isku dardarsamo farxaddii inta ka badato uu ishay weynaa fiiri ila akhri adugu indhaha ku arag nambarka aan helay uma qoro iqra'u kitaabi inta ishay waayo sababto meesha u socdo uu fahma haddii laakiin wixii laga qoray ay waxun noqdaan
oo beerjax ay noqoto u qaracmo balaaya u soo hoyo habeenkaas muxuu leeyahay yaa waylatana ma li hada alkitaab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا بقى يهوجي انت مدح ليس صارت قعمها قال لي حتى وحير من الله كدقي وحبك ما تجين كتابك معنى كل شيء ولا خرج ماذا تخافكوا خرستي ماذا تلافن كل شيكتي ماذا مرتي بيني وبينك أفكر إنه اسكو أمانه ماذا يروح هالمر حتى كافة كذي كل وحوا قرين يا سلام سورة دان مركز سلاس أي وهذا سورة دان لنا عسو حكى حرقان نري سورة الحجرات لنا كلا وحكى حاجة سورة ذاريات سورة ذاريات محكى بالله بنه والذاريات ذروا الحاملات وقرا فالجاريات يسرا المقسمات أمرا محكى حاجة إنما توعدون لواقع بعثك وحي الذين شيء inuu hubaal yahay oo dhacayo oo xaqiiqo yahay ay iyadu kale suuradaanuna maxay ka leedahay isla inta suuradaas rizqiga iyo bani aadanka waxa ilaahay uu siiyay wax fiican iyo wax badan iyo wax yar qofka rizqiga la siiyay ay xiriir la leedahay tanna rizqan lil ibad markuu ilaahay ka shakeeyo wixii dhulka uu dhex dhigay oo khayraad ah hadhow wuxuu leeyahay doona rizqan lil ibad wa rizq an u diyaarinay oo ugu tala galnay adoomadu قاف والقرآن المجيد هرت إلهي دارك بالله سورة سيدا عادي قاه قفك قوين أو قيمة له وركي وكوشي هدو دارك بالله وحسهل لنا أنا قف اسكب بيبيلا وحورا بسك شيء جري وهدو دارتو يهدو مريها فرتو أيضا فرق الهين هاس قيمة ملك لكن قف قيمة وقصر هاي عليك كل لها هدو ودارتو وحتكون خصبنتها أنا سسحة ولا جيسته وضع كنت أنا هذا اللي يلزم وحد له ورب العالمين وحول هذا قفل وحنكون دارتو القرآن إلهي كون كذا وحكست أبو ري حدو دارتي محكو دارتي والقرآن المجيد قرآنكم مركب وكل دارنا القرآن أنسهلنين المجيد وحلقوا ذا شرف يقيمه يكرامه يوناك إسقي كل ما ذي مل كسر ريده اللي سي هذا مجرو وحكست أو إلهي كو هذلي أما قفوا الباكو هذا شو وهو أود بدنا قرآن كهو وحكست إلهي كو هذلي وحكلا كسوقات مل قرآن كان وهو شرف بدن وهو أود بدن markii horta dadka dhaartaas ilaahay sheego quraanka ku dhaartay ayuu wuxuu soo qaatay arinta lagu kari waayay mushrikiintii markaas tusaalahan joogtay iyo waxa iyaga noocooda oo kale war qosaya lagu lahaa waxa la yiri bal ajibu an jaa'ahum munzirun minhum faqala al-kafirun hadha shay'un ajib waxa la yiri gaaladii waxay la yaabeen oo ay qaado waayeen oo maankooda gali waday laba arrimood number 2 nabi maxamed oo iyaga ay isku dad yihiin oo nabi bani aadam ah in la soo diray horta taas waa aqbali waayeen waxa la yiraa oo maxay rabaan nabi aan dad ahayn in loo soo diray okay حتى دد نقنا يرى أو حتى صورة قلوي إنه ملك ينقدنا والبدت كمرت حلكة نندرك مرت لاندرها ملاس لا هذه وحير هذين ملا أنت شاكر أي قيمة لها
dad maaragtay iyagu meel sare la joog ay yidhahdeen walba meelahan inuu ka yimaada halkan waxay yidhaahdeen waxay garan waayeen horta qiimaha uu nabi maxamed leeyahay salawaatullahi wasalaamu caleyh. number o, dadka markii shaksi loo xisaabo dadka dhan nin ka tilmaaman u ahaa oo ka horeeya oo ka fiican oo ay u qarsanaayeen. waxaa loo yiqiin maxamed alamin oo markii nin la yihaa qof ka wanaagsan ma jirin. lacag qofka laguma qiimeeyo, qiimuhu hadduu lacag yahay maantaad wey kartaa, haddaad awal aadan lahaa jirinna maantaad heli kartaa. marka lacagtu ma ahan qiimaha rasmiga iyada wax lagu cabiro maaha, laakiin qofka iyo shaksiyadiisa nabi maxamed isaga ugu quality iyo dadnimo fiicna. midda labaad, waxa loo sheegayo inay qiimeeyaan ayay ahayd oo qur-aankan iyo wuxuu sheegaya inay isaga dhuuxaan ee inay isku mashquuliyaan muxuu bani aadan u noqday nabiga naloo soo dira ma hayn. marka horta waxay qaadan waayeen numberka koowaad oo ay la yaabeen waa nebi oo bani aadam ah oo loo soo diray, taas waa qaadan waayeen. bal cajibuu an ja'ahum mundirun minhum. xoogaa yar waxaa ka muuqda inaysa ayagu qiimo isla lahayn oysa ayagu is aqbalayn. mundirun minhum, waad aragteen bani aadamka dad waxaa jira ajnabiga iyo dadka kala qiimeeya, laakiin ayagu aan wax qiimaa oo badan aan isugu fadhin. horta ayagu inay aqbalaan ay ahayd, nabigaan ayaga kamida inayba arrintaan soo dhaweeyaan ay ahayd, ee ma ahayn inay yaab iyo anfariir ka yimaado. waxaa kale qaadan waayeen nabi maxamed inuu yiri salawaatullahi wasalaamu caleyh inta la dhinto ayaa dadka soo noqlanaya. wax suurtagala maaha. waxay ku sheegeen taas aidaa mitna wakunna turaaban dalika rajcun baciid. waxay yidhahdeen markaan inta dhimano oo qofku dhammaado uu dhulka ku milmo oo hadduu rabo hadhowta habaas isku rogo miyaa laleeyahay qofkiyaa soo noqona. waxay yidhahdeen dalika rajcun baciidu. taas waxay yidhaahdeen waa soo noolaasho iyo soo noqosho aan caqliga gelayn oon suurtagal ahayn. wax dad loo sheegana maaha yidhahdeen, wax la fahmi kara maha. maxaa ku qasbay marka inay saas yidhahdeen oy aqbali waayaan in dadka la soo noolaynayo? waxay istuseen dhowr arrimood oo iyaga maskaxdooda ku qunfulneed ayaa waxaa uga soo baxday sida waxay istuseen in qofku markuu dhinto jirkiisii wuu dhammaana. markuu dhammaado meel wixii wax wada joogaya hal meel maha, way firirsamayaan. wixii qaara habaas xitaa isku roga. qofkii haddii la damco in la soo celiyo, intaan la soo celin horta waxaa ka horeeya in la garto qofkan jirkiisii qayb walba oo ka mid ah meeshii aadi, in horta meel lagu sheego ayadii. waxay istusaan haddii xataa la fahmo meeshay waxaanu jiraan iyo cad walbaaba meeshuu ku maqan yahay haddii la fahmo, waxaa adagay istusaan haddana soo qabqabashadii inay adag tahay. masalan qalab walba haddii la isticmaalo cad walba in meel laga soo qabto oo wixii laysku keeno, waxay yidhahdeen waxay istusaan inay hawshaas hawl fudud aysan ahayn. waaba dhacdayba in iyadoo habaasa xataa qofka ciid iyagoo ah wixii lasoo araruriy meel laysugu keeno waa la dhoobdhoobay, haddana in sidii qofku ahaa oo lugihii iyo gacmihii iyo maskaxdii iyo qofki siduu ahay lagu soo celiyo, haddana taasaa kasii daran. marka waxay yidhahdeen waxaan o dhan marka laisku geeyey waxay sheegayaan inay suurtagal ahayn qof dhintay oo dhammaaday inuu soo noqdo inaysan suurtagal ahayn. ayaga sidaas usoo baxday. sidaas markay usoo baxday arrintan salkeeda meesha ay maskaxiyan ka bilaabanaydo waxay tahay inaan la aqoon horta marka koowaad
qofkii dhintay jirkiis meeshu ku dhammaaday iyo meeshuu aaday ilaahay taasuu burburiyey waxa ka dambeeyahu waxba maaha oo ah wax walba hadday lamid ciidda qaybta u yar hadday xataa la eg yihiin meel walba oo jirka qofka u aaday ilahay wuxuu yidhi annaga ka warrama qad calimnaa maa tanqusu alardu minhum wa cindanaa kitaabun xafiid jirku wax alla wuxuu qofka ka nusqaaminayo qofku markuu dhammaanayo asagana hal mar ma dhammaanayo tartiib tartiib horta u nusqaama qur-aanku u dhammaana ma dhihi tartiib tartiib u nusqaama macnaheedu ma dhammaanayo qofku tartiib tartiib u dhammaana tartiib u nusqaama waxaa soo hara unug yar oo carabiga lagu yiraahdo cajbu dana oo culimmada hadda adduunka jooga ay qaarkood ay sheegeenba haddeer la qiray in haddii si kasta iyo qalab walba la isticmaalo oo si kasta la isugu dayo in la burburiyo inaan la burburi karin qaybtaasaa ka hareen inta kale way dhammaatay intaas yaa sidaas yidhi nabi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi qofka bani aadamka ah ina kula bni aadama yafnaa ilaa cajba danabi minhu khuliqa wa minhu yurkabu qaybtaas unugaas yarkaa mahana inta kale qofku u dhammaana markuu dhammaado qaybtaan yartaahu qalab walba oo la isticmaalo wax la burburi kara maaha qaybtaasa ha dhoweyto marka la rabo in qofka la soo celiyo axaadiistu waxay sheegaya cirka ayaa waxaa ka imaanaya biyo sida manida oo kale ah ragga qofku wuxuu usoo dhalanaa sida miraha dhulka ku jira ay usoo dhashaan ayuu qabriga furdu ka soo leeyay iyadoo la isticmaalayo unugaas aan dhammaanayn laakiin su-aashu waxay tahay oo culimmada qaar isweydiiyeen qofku markuu soo noqonayo isagoo siduu adduunka ugu dhintay miyuu kusoo noqonaa maya adduunku wuxuu dhiman karaa isagoo lugiya gacanla wuxuu dhiman karaa isagoo jiraalow ah wuxuu dhiman karaa isagoo noocaana wuxuu dhiman karaa isagoo noocaan saas maaha waxaa lagu soo celinaya yidhahdeen markii kow la abuuray kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu macnaa kowdii hore markii la abuurayay sidii loo abuuro kale ayaa halkaasa laga soo bilaaba laakiin tilmaanta uu yeelanayo 100% lama dhamaystiri karo oo qofku caafimaad cudurkii uu qabay iyo waxaas dhan lama imaanayo qofka asoo caadi u imaana isku da'dii hadduu 300 ku dhintay 2,000 sano hadduu awal jiray asagoo duqa oo bakooradiisa sita aakhire imaan maayo da go-an ayaa lagu soo qofku waa qofkii laakiin waxaa laga bedelaa waxyaabaha qaar laakiin meeqaa laga bedelaa meeqaa jooge waa tafaasiil aan cidaad ilaahay ahayn aysan 100% ogaan karin qofka marka adduunka dadka joogo dhan saasay noqonaya dadka markay dhintaan marka inuu qofku baaba'o ujeedada wax marka laga hadlayo sala qofka qabriyaa la gelinaa qofku baaba'aa macnaheedu maaha qof walba in saas loola dhaqmayo qasab maaha qof walba qabri ma galo qofa bahalaa cuni kara banaanka iska ooli kara oo ku dhammaan kara laakiin waxaa laga hadlaya sida guud bani aadamka qofku inuu xataa dhammaado ilaahay dadka qaar uu ku karaameeya inaan jirkooda usan isbedelin oo rag asxaabta kamida iyagoo muddo mootanaa dheer ayaa la damcay in meeshii ay ku duugnayeen oo qubuurtoodii ayaa la damcay in laga bixiyo sidii uu ahaa isagoo ah ayaa loo tegay bal nin macruuf oo la yaqaan ilahay wuxuu ka baryi jiray wuxuu maqlay wuxuu arkay marka diintu ka sheekeynayda qofku inuu inta dhammaado oo milmo oo uu eber noqonayo hadhowbito uu jirkiisu xataa cayayaan iyo bahla yaryar kasoo wada baxayaan wixii uu dhibsaday ilaahay wuxuu ka baryi jiray markuu tukado ilaahay jirkiisa inuusan saas ka dhigin in macruuf nin sheekh oo ka sheekeynaya
ninka ilaahay iska baryi jiray wuu dhintay adiga muddo dheer kadib sanado badan kadib ayaa waxaa lagu khasbanaaday in qabrigiisii la furo duruufo yimid oo qabrigaa la furay waa sidiisii ilaahay marka qofku wuxuu ku karaameyn karaa in uu sidiisa ahaado jarkiisa waxaan soo sheegnay marka gaaladii waxaa la fahamsiin waayey nebi moxamed marka loo soo diray bacigii iyo wixii iyo qur-aankii loo akriyay waxba waa qaadan waayeen ayaga waxaa ka tala fiicnaa bani aadamka marka dhinacaas la yidhaha waxaa ka tala fiicnaa qoladaas mushrikiintaas jinni hal mar kaliya ayuu qur-aanka dhagaystay ayaa ka tala fiicnaayeen kuwa nabigii yaqaaniin luqadii fahmayeen wax walba waa la kari waayey laakiin maalin nabigoo salaad tukanaya ayaa koox jinniyaha kusoo leexatay maxay sameeyeen qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljin qaluu inaa samicna qur'aanan cajaban kuwaan maxay la yaabanaayeen nabiga loo soo diray iyo waa lays soo bixina ayaa dhakafaar ku noqotay oy aqbali waayeen laakiin kuwaasu dhinaca kale waxay yidhahdeen qur-aan maaragtay lala dhacay oo cajaa'ib oo isagoo kale aan la arkin aan maanta soo maqal oo maxaa laga faa'iida yahdi ila rushd faamanna bih horay ka qaateen si halhaleel ah ayagoon muran iyo qaylo aan gelin walam nushrika birabbina axad weliba maxay sameeyeen markay qur-aankii dhagaysteen intaba isla markiiba tageen oo dadkoodii aadeen ayay ducaad isku bedeleen oo dadkoodii u sheegayeen inaa samicna qur'aanan cajaban yahdi ila rushdi faaamanna bih walan nushrika birabbina axada dadkoodii ay isla markiiba waxay isku bedeleen ducaatun ila allah meesha kuwaan la kari waayey qur-aanku wuxuu yidhi ilahay suuradda isagoo sii wada wuxuu yidhi bal kadabuu bilxaqi lama jaaahum fahum fii amri marij qur-aankii ilaahay inay beeniyeen ayuu ilaahay sheegay markuu soo gaaray oo ay ogaadeen qur-aanka wuxuu ka hadlayo ayay diideen markaasuu ilahay wuxuu ku tilmaamay fahum fii amrin marij macnaa amrin marij waxaa laga wadaa dad ay tala meel u taalmahan ee daday wax ay hawshu isaga qasan tahay oo maalinba waxay la soo gudboonaada iska sheegaya tusaalaha qur-aan inta laga fakeray wax cilmiyeysan dad ka duulaya maha oo ra'yigay sheegayaan ra'yi laga baaraan degay maha waa wixii un maalinba wixii la kulma iyo jawiga ay markaas ku jiraan ayaa saameeya markaas maalinba maalin qur-aanka wax gaaray ku tilmaaman markaas waxaa iskala bedelan waxay shala ku sheegeen waxay maanta ku sheegeen waxay beri ku sheegeen way kala bedelan sababtoo ah ra'yi sax ah iyo meel sax ah warkoodu kama soo duulayay waa laablakac saas awgeed ayaa waxaa kala duwan qofka waxay yidhaahdeen haddaad aragto hal ra'yi ama hal arrin isagoo hadba meel derbi kula dhacay waxaad ogaanay inuusan ahayn qof si fiican u xisaabtamay oo wixiisu ay aqoon iyo garasho iyo cabir iyo miisaan ku salaysan yihiin maaha sababtoo ah haddaa adiga ogaato kan in biyo la yiraa suurtagal maaha cishaha marka la tukada inaad shaah ku sheegto beri subaxna aad ku sheegto waa liin la miiray saa damban aad wax kale ku sheegto suurtagal maaha haddaad awal hubtay inay biyo ku yihiin biyay ku ahaday ayaga marka waxaa leeyahay gaalada niman si fiican u xisaabtamay maahan oo ra'yigoodu uu ra'yi toosan yahay waa dad ay hawshu isaga qasan tahay halkaasaan ku joojinaynaa insha allahu tacaala sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbihi